deegaanka bus oo ah deegaan weyn ayaa waxaa kaloo dhibaato ay ka haysataa dhinaca caafimaadka iyagoo arrinta ay noo xaqiijiyeen mid ka mid ah dadka halkaasi ku dhaqan isla markaana ah dhakhtarka dadka daweeya waxa weeyaan haadaan baa la yidhaha geedkan marka dhowr sano markuu joogo uu jabo dabeetana oo dhisno wadiga arkaya xaqaqaha iyo ciidda waa meesha dadka lagu daweynayo waxa weeye haddana inta badan lama dhisi intaasoo sano anigu intaasoo sano waxaan ku daweeya dadka qofka sano ku daweynaya meelaha ilaa xaale laatama taan meel xaaqaaqda fadhaba karo saddex steedkii waa la bilaabay intii markii dooda lagu soo noqdayna waan bilownay haddana meeshan aniga dhistay oo maahin meel hay leedahay hayadi ambaa dhistay anigaa gacanta ku dhisay basra jidda shiil oo ah gudoomiyaha ururka samafalka tawfiiq oo halkaasi kula kulanay ayaa waxa ay ka warantay in meel ay ku nool yihiin 1000 qof intay ugu yar yihiin ay caafimaadka meesha lagu daweeyo bini'aadanka ay sidan oo kale u eeg tahay waxaan qabaa ayda Yurub inaan lagu haynin meel sidan oo kale ah ee meel nadiif ah lagu hayo marka runtii waxaan weydiisanaynaa dadka ay khusayso caafimaadku ee dawladda Soomaaliland ah inay indha raxmad la ku soo eegaan meeshan oo ay u dhisaan meelaha ummadda lagu daweeyo ubadka yaryar ee sidaas daqsigu ku cunaya meesha ay wax u qabtaan